maalmaha adduunyada way isdaba marayaan. Adeera, marxaladan shalay isaga ayaa ku sugnaa, balse maanta oo caafimaadkiisii dib u helay, waxa uu xasuustay saaxiibkiisii Qoriyow oo ay tareenka waalida sanado isla saarnaayeen. Waxayna iska shabahaan labadan qof, juwaan garabka lagu sito iyo magaalada oo muddo sanado ah la dhex wareegayay. Qoriyow iyo Adeera Kismaayo waxa ay ka yihiin caan, waxaana waalidiisii ay ka bilaabatay sida la sheegay ka shakiga cunto isku dardar ah oo la siiyay. Adeerana galabta wuxuu dib u booqanayaa buushkii uu ku ogaa saaxiibkiisii Qoriyow in lagu kaxayaa la rabee marabtehe maya marka la kaxay maanta maya buushkan oo muddo sanado ah seexanaya Qoriyow waxaa ka muuqda burbur badan. Qoriyowna wejigiisa waxaa saaran diif aad u badan, daal badan. Magaalada Kismaayo ayuu duruufo adag ku wajahayay, balse Adeera ayaa go'aansaday in isna duruuftan adag laga saaro lana geeyo xarunta Dr. Xabeeb ee magaalada Kismaayo. Adeeraagay shalay waalnaa, maanta isaga ayaa daryeel bixinayo, dhar ayuu sadaqaysanayaa, waa kaatimaha ka xiiraya Qoriyow, biyaha si naxariis la u siinayo, waana kan isaga uu ku soo dhaweynayo xarunta daryeelka dhimirka ee Dr. Xabeeb ee magaalada Kismaayo oo maamulka xaruntan uu Qoriyow ku daaweyn doono si lacag la'aan ah. Alxamdulillah, Adeera ayaa halkan hore uga caafimaaday. Qoriyowna waxaan u rajaynaynaa caafimaad qab wanaagsan. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Dr. Cabbaas oo isku howlay hawshan, ballanqaadayna daaweynta, xanaaneynta, jiifka iyo cuntadaba in Qoriyow looga dhigayo si lacag la'aan ah. Haddii aad muuqaalkan ka heshay inaad filowna soo dhahdo, waxay noo tahay dhiirigelin. Mahadsanid.